horta waxa weeye ergey gaarka ah shaqada uu qabtay runtii waa amaanaynaa shaqo wanaagsan oo loo baahnaa iyo waqti loo baahnaa iyo gaab loo baahnaa ayuu buuxiyay waxa weeye labadii bilood oo la soo dhaafay oo intii ra'iisul wasaaraha la magacaabayay intii dawladda la magacaabayay xukuumadda la soo dhisay intaas runtii shaqada uu qabtay shaqo u dhiganta baaxadeeda aan la qiyaasi karin way hadduusan booska buuxin lahaynna maantay lama joogeen meesha la joogo maantay waxa isku soo aaday xukuumaddii oo dhisantay iyo gargaarkii oo dalka yimid waxaana shaqadaas ugu weyn ergeygu shaqadu qabtay marka runtii shaqadiisa waa bogaadinaynaa shaqadiisuna waxay ahayd dalka Soomaaliya inuu maaragtay adduunkii gaarsiiyo fariimihiisa hay-adanina waa hay-adii deeqaha ayadu qaban lahayd markay qabtaanna groundka dhulka oo gaarsiin lahayd dadkii lagu talagalay marka shaqo dhamaystiraysa waliba intaa waxa si dheer guddi qaran oo ra'iisul wasaaruhu magacaabay oo wasiirro badan ay ku jiraan iyo culimadii iyo civil society-gi guddigaasina shaqada wacyigelinta iyo campaign-ka iyo dadku inay dhaqaale bixiyaan dhaqaalihii adduunka kaliya ma ahan dhaqaalihii wuxuu ku jiraa jeebka dadka Soomaaliyeed jeebka ganacsatada jeebka inta waxaysata maalinkii maaragtay cuntada yarta oo la cuno qayb kamid ah in dadku ay ku tabarucaan oo dadka gaajeysano hal luqmo oo ay cunaan yaani qofka u dhimanaya waxa la rabaa ninka 3 jeer cuni karaahi inuu qayb ayagaas u dhigo marka wacyigelin guddi kale oo gudaha wacyigelin ka sameynayna waa jira guddigaas adduunkiina oo ergeygu fariimihii madaxweynaha iyo adduunkiina uu gaarsiiyo qayla dhaanta waxa ka taagan Soomaaliya inuu adduunkii gaarsiiyo hay-aduna waa hay-adii shaqada marka shaqo is dhamaystiraysa oo aan marnaba isku dhacayn isku meelna u jeeda hadafkuna yahay in qofka Soomaaliga ee dhibaataysan ee haraadsan ee gaajaysan in wax la gaarsiiyo way hadaf marka kulli waxa loo wada socdaa macal gudiyadan xukuumadda madaxweynaha annagoo dhan waxaan u gurmad u nahay in la gaarsiiyo dadkaas deeqdii lagu talagalay